بسم الله. أنا دكتور محمد فارح حدق kuna takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha iyo maskaxda. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo wacyigelin ku saabsan cudurka balsiga loo yaqaano ama afqalooca kaasoo bulshadeena inta badan aad ugu badan tahay aysan ka haysan aqoon ku filan ama aysan wacyigelin badan aysan ka haysan. Sida caadiga ah xanuunkani waxa waaye waa tabardarri ku timaada murqaha inta badanna sababta ka timaado ay tahay neerfaha toddobaad ee fariisiyaasha in uu caabuq ku yimaado ama barar. Waxyaabaha oo qofka keenana way kala duwan yihiin. Waxa ugu badan oo keena waxa waaye cudurradan loo yaqaano Bell's palsy-ga, sidoo kale stroke oo kale uu keena afqalooca. Waxaa kaloo inta badan keena burooyinka maskaxda iyo dhaawacyada wejiga ama ku dhaca madaxa. Intaas oo dhanba way keenaan. waxyaabaha ugu badan oo qofka calaamad ahaan uu fahmi karo oo ugu horeeya waxaa kamid ah qofka oo hal dhinac wejiga kabaabi ka dareema, isha oo xirmi weysa, iyo sidoo kale qofka oo afka oo qalloocda, kadibna si guud oo qofka uu dareemo muuqaalka wejiga oo isbedela iyo candhuufta uu kontroli waayo. daaweynta inta badan waxay ku xiran tahay sababta. markasta oo bukaanku uu xilli hore ogaado isla markaasna xilli hore oo dhakhtarka la xiriirana waxay soo dedejisaa fursadda soo kabashada bukaanka.